أحمد عبد ميري أحمد نور حافظ وهراء وصول نقضي أجاسمها جود وزارة الجناعسية الدولة الصومالية ومانت ورئيس جارة كوسية تلفزيون ستار تي في مقالة مقدشة أيها كهل ليه هشيس كدولة تركيا الدولة الصومالية أي وضجلين كوسا بسن وفنتا كلون كي خضارتا إسكاشيا جناعسي لبض الضل أجاسمها أيها شيء إن هذا وزارة الجناعسية هنانك أو شقين يسوع دناع هشيسية الجناعسية galaysa dawladaha shisheeye ay tahay arrin wanaagsan taasina uu dalku u baahan yahay horumar soo kale waxa uu ka hadlay in dib loo soo celiyo warshadihii dalku uu lahaa agaasimaha oo arintaas ka hadlaya iyo sidoo kale markii laga dhigay agaasimaha guud sida ay ahayd wasaaradda ganacsigu waa kan isagoo ka hadlaya Axmed Cabdi Mire adar waa mahadsan tahay adiga iyo telefishinka TV-ga Star TV iyo shaqaalihiisa oo dhan iyo adiga oo far dheer ah oo maanta igu casuumay halkaan inaan warbixintan yar aan diibo maadaama aan wasaaradda ka soo qabtay shaqa yani xilal badan kamid ahaa mar aan ahaa la taliyaha wasiirka mar aan ahaa agaasinka ganacsiga dibadda iyo mar aan ahaa agaasinka guud marka waan sheegan karo waliba wasaaradda miiskii u horeeyay inaan anigu aan dhigay xamar markii wasiirkii ganacsiga oo xilligaas Cabdullaahi Axmed Afrax professor Afrax uu ii soo diray inaan wasaaradii aan ka sameeyo caasimadda ka bilaabo xafiis si furo guriga hargaha iyo saamaha ay ahayd miiska horeysay meesha aanu dhignay markaana dawladda waxa uu ahaa saldhig Baydhabo marka muddo ay habacsaneyd ka bacdi in dawladda federaalka madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaaruhu la baxay nabad iyo nolol inay fahmaan ganacsigu muhiimadda uu u leeyahay ummadda Soomaaliyeed wadanka Soomaaliyeed ay maanta u soo diraan wasiir boorka ka jafa aad iyo aad baan uga hambalyeeynaya wasaaradda ganacsiguna maadaama ummadan ay tahay ummad ganacsi aad ogtahay sida caalamka looga dareensan yahay ganacsigooda in wasaaraddaas loo dhiso oo muhiimad la siiyo wasaaraddaas waa arrin aad iyo aad meesha ku jirta oo muhiim ah oo aan aad u soo dhaweynayo su'aal aan ka weydiino arinta la xiriirda wasaaradda ganacsiga waxay heshiis la gashay wasaaradda ganacsiga ee dawladda Turkiga heshiis laba go'sooda oo ay galeen dawladda Turkiga iyo dawladda Soomaaliya heshiiskaas waxa ku jiray in khudaarta Soomaaliya ka soo baxda sida oo kale kalluunka oo kale loo dhoofinayo waan ognahay dalkuna gacanta kuma wada haysa dawladda federaalka marka arinta hadii ay bal say u suuragalay waa waajib in aynu heshiiskan asil la gallo wadamada aynu saaxiibadan nahay Turkiga oo kale oo kamid yahay ama ganacsigu ma naga la dhaxeeyo ganacsigu waa xor si kasta oo maamulku uusan gacanta dawladda federaalka iyo dawladaha memberska ka ah uusan gacanta ugu jirin haddana ganacsiga waxaan ognahay inuu isu socdo wadanka oo aan qolona ayaan xanibin marka waxa weeyaan ganacsiga wuxuu imaanayaa dekadaha badeecadii khudaartii iyo wixii dalkeena ka soo go'ayay iyo xoolihiiba dekadaha ayayna ka dhoofayaan una malaynmayo qof Soomaaliya inuu ganacsiga uu kala gooyin karayo ama isku dayayba inuu kala gooyo maadaama dalkiisa iyo dadkiisa ummaddu ay yihiin marka waa suurtagal weeye arrin suurtagal ah oo waliba nayaayira leh weeye in la sii badiyana ay muhiim tahay oo wadamo badan aynu heshiis la galno inagoo waliba xoog saarena xagga dhoofinta inagoo xoog saarena maxaa jira dhaqaalaheena kuriimadiisu wuxuu ku xirmayaa sida adduunyada aan ula ganacsanno aynu badeecadeena u dhoofino ayuu ku xirmayaa wixii markaas soo dhoofinta looga maarmi waayna wala soo dhoofinay laakiin wixii laga maarmi karo waxay la tahay dawladdu sharci ayay ka soo saari doontaa waxaan kaloo aan aad ugu faraxsanahay in muddo dheer kadib wasiirka uu maanta shalay u geeyay sharcigii u horeeyay oo company looga iyo investment law talaabo aad iyo aad muhiim u ah hore loo qaaday way dhanka warshadaha oo wax iga weydiisay dastuurkana waxa ku qoran hadda inuu businessku wixii ganacsi u private noqdo laakiin u malayn maayo inay ka reeban tahay waxaan ay yiraahdaan public private partnershipka marka warshadii in la soo nooleeyo si kastaba ha ahaatee ama dawladdu ha la wadaagto ganacsato xor ah
oo private ah madax bannaan miyaynu isticmaalnaa baraafitka ama baraafitkaba ha lagu wareejiye in dhulal waaweyn oo warshado ah baa jiray laga faa'iidaysto oo warshadihii dalka la soo nooleeyo anigu ganacsi baan ku soo jiray oo aabbahay ku soo jiray awoohay ku soo jiray family ganacsi baan ka soo jeedaa markaan dibadda u baxayna waxbarasho ganacsi ayaan soo qaatay markii aan soo noqdayna wasaaradda ganacsiga ayaan ka soo shaqeeyey oo xilal kala duwan aan ka soo qabtay marka waxyaalaha haddeer aan isleeyahay oo aan xusuusanayo aan isleeyahay waa muhim inay ku tallaabsato wasaaradda ganacsigu waxaa iigu horreeya kow shaqaalaha in la diyaariyo waddankeenu nabad buu noqonayaa waa shaqaynayaa adduunyada ayuu la ganacsan doonaa marka in tababaro loo furo shaqaalaha intaan gudaha looga furo wasaaradda gudaheeda lagu tababaro dad aqoon leh loogu keeno waa arrin muhiima arrinkaas waxaan kale oo aan ku talin lahaa haddii adduunkeenu ka mid nahay intii WTO la sameeyey qoladan ay yidhaahdaan World Trade Organization ganacsiga adduunka hay'adda ganacsiga adduunka saaxadda waa ka maqnayn intaynu inagu isku jeednay ayay ahayd inaynu niyadda ku hayno oo observer waxaan ay yidhaahdaan si fariiste qof ah aynu ka codsanno hay-adda si aynu u fahamno bal sida procedureka shaqadeeda iyo nidaamkeeda si aynu mustaqbalka aynu u codsanno sidii aynu member uga noqon lahayn idana wasiirku inuu arrintaas uu eego aad iyo aad baan u jeclaan lahaa maxamed cabdi cismaan maxamed faradheere Star TV magaalada Muqdisho aad ayaad mahadsantahay mudan agaasime aad mudan